rasuulku wuxuu sheegay markii uu ka warramayay nin isagoo xadiis ka warramaya ayaa wuxuu xusay yudiilu safara rajulan nin buu xusay yudiilu safara safarka dheeraynaya yamuddu yadayhi ila asamaa'i oo gacmihiisa kor u taagaya oo ilaahay baryaya ومدعمه حرام كاسي وحاو عناوة حاران ومشربه حرام وحاو عبانه حاران وقضي بالحرام إساقنا حاران بلو سوكري أي رسولك عليه الصلاة والسلام فأنا يستجاب له كاسي سكستهدو أقيل سكستهدو إلهي أبري مدام وحو عنايا أي حارانتا وحو عبايا أي حارانتا حاران لو سوكري سيدا لوغا أقبل يا بويري رسولك عليه الصلاة والسلام marka walaalayaal barakallahu fiikum duruufaha abaaraha inagu xeeran waxaynu kaga bixi karnaa marka hore inaynu ilaahay dambi dhaaf weydiisano dhamaanteen mar labaad waxaynu kaga bixi karnaa inagoo waxa inaga dhaxeeya ee ummaddu ay wada leedahay ee dadka muslimka ah ka dhaxeeya si siman loo qaybsado waliba sourceska ummaddu ay leedahay dad gaari ay ku tagrifanayaan waxa wax laynaga aqbalaya radul madaalim iyadoo dadka waxoodii loo celiyo ilaahayna waxaanu ka baraynaa inuu sidoo khayrku ku jiro inuu waafajiyo waliba dabaqaadka maanta mujtamaca gudaheedii laga sameeyay kooxa sameeyay waa mustahdaf maaha wax iska yimid dad heshiiyey sigaaro u heshiiyey ummadda u heshiiyey hantidii ummadda u heshiiyey sourceskii ummadda u heshiiyey ayaa dabaqaadka sameeyay oo taasina waxay inuu back yani wixii ay soo celisay waxay noqotay in maanta dadkii oo dhan ay wada gaadho oo inagoo ilaahay baryayna inagoo qaylinayna inagoo subxaanallah in maanta ma garatay roobkiina inaga raago abaarihina ay bataan roob doonta dee rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa waxa laynoo ogolaaday in masaajidada lagu tukado waxa laynoo ogol yahay in jimcayaasha roob doonta laga akhriyo laakiin sunnuhu waxa uu yahay in bannaanka loo soo baxo dadku ay muujiyaan ilaahay isu dhul dhigaan ilaahay u noqdaan wixii xuquuq ay leeyihiin ay isu celiyaan wixii ummaddu ay leedahay la celiyo dabeeta ilaahay iyadoo oo loo tadarrucayo laysu hoos dhigayo la yimaado dabeeta halkaasi dadka saalixiintii dadka ay tukiyaan ilaahay la baryo dadkeena la tuhmaya ay ilaahay dadka u baryaan dadkuna ay aamin yidhaahdaan dadkana laga waaniyo waxa keenaya abaaraha ee macaasidu ay ka mid tahay waxa keenaya runtii abaaraha ee ay ka mid tahay dulmiga innii xaramtu adulma calaa nafsi wajacaltuhu baynakum muxaraman falaa tadaalamuu ilaahay wuxuu yidhi naftayda aan ka xaaraantinimeeyey inaan cid dulmiyo anigoo dadka abuurtay wajacaltuhu baynakum muxarama idinkana dhexdiina xaaraan baan ka dhigay falaa tadaalamuu hays dulmiyina oo dulmigoo la joojiyo oo dadku ay u sinaadaan shaqada oo dadku hantidooda ay u sinaadaan oo wax walba ay u sinaadaan dadku qof wal oo muslima waa inuu ka qayb galo laakiin waxa weeye haddii qayb inaga midii ay fuliso sunnihii waynu fulinay ayay tahay laakiin waxaynu uga jeednaa waxa weeye dee dadka ina tukinaya dadka ilaahay inoo baryaya iyo inta ina hortaagani waa inay noqoto inta adqiyada ah ee runtii ilaahay agtiisa la tuhmaya waa inay noqdaan asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu